isagoo inta ka awood yar ayuu difaacay dalkiisa maantana warwar kama qabno inaynu cid kaste oo isku dayda inay daandaansi ciidanka qaranka iyo dalkaba soo saarto inaynu iska difaaci doono waa run xaqiiqadu waxay tahay kubaynaan helin xodxodasho xinjir baa loo qubay waa run heestaasi maanta ay taagan tahay waxaan u sheegayaa qolada muxuu ahaayay ku soo dhuumatay diyaaradana waxba ka bedeli mayso imaatan aad timaado degmo Somaliland ka tirsan adigoo oo 90% meesha aad xukumaysay aanad maanta tagi karin wax allaale waxay ka bedelaysaa ma jira taana ku biyacaba ha noolaato cadow ha dhaco ciidanka qaranku ha noolaado gudoomiyaha ku-xigeenka golaha wakiilada wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir dowlaha arrimaha gudaha barasaabka gobolka xildhibaanada labada gole meeyarka degmada madax dhaqameedka dhammaan marti sharafta sareeyaasha saraakiil xigeenada aliftayda iyo dabaleyda dhammaan haliyada dariiska u xiran ciidanka qaranka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin farxadeed waa maalin aynu goobjoog ka nahay xidhitaanka kumanaan ka tirsan dufcaddii koowaad ee tababarku u soo xidhmay dugsiyada bariga oo ay ku xigi doonaan dhammaan dugsiyadii kale usbuucyada soo socda ugu horreyn waxaa iga guddoontaan salaan aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida salaan ka turjumaysa ixtiraamka iyo kalsoonida buuxda ee uu idinku qabo mudanayaan ciidanka qaranku halka uu maanta joogo waxay ku soo gaadheen nafkurka iyo hagarbaxa madaxdii kala dambeysay ee dalka iyo ciidan qaranka soo maray madaxweynayaal taliyayaal haliyeeyo inaga mid ah oo nafahooda u soo horay dhismaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland jiilba jiil buu ka dhaxlay maantana waa maalinteennii waxaad tihiin ciidan tababar leh nidaam iyo isla xisaabtan waxaad taqaanaan waajibaadkiina waxaad isku tixgelisaan amarka iyo kala dambeynta ee idinkoo raacaya xeerarka iyo shuruucda ciidamada qalabka sida waajibkiina koowaad ee idin yaalla waxa weeye ilaalinta diinteenna dalkeenna dhulkeenna iyo qarannimada jamhuuriyadda Somaliland waxaad tihiin seefaha jaraya cid kasta oo isku dayda inay xasoolin darro geliso Somaliland gacan kasta oo khatar ku ah qarannimada jamhuuriyadda Somaliland waxaad tihiin seefihii jari lahaa kuwaas farxadda koowaad ee aynu maanta dadkeenna ugu bushaaraynayno waa inaynu nahay ciidan hal adayg leh diyaarna u ah waajibaadkiisa inuu guto si karti leh firfircooni leh gardarro iyo daandaasi innaga laynaguma yaqaano ee laynaguma xanto degdeg waxaynu mar walba ka turjumaynaa dareenka shacabkeenna iyo qarannimadeena jamhuuriyadda Somaliland marna kama gabanayno inaynu gudano waajibaadkeenna difaaca qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudanayaal ciidamadeena qaranka jamhuuriyadda Somaliland maraaxil badan buu soo maray isagoo inta ka awood yar ayuu difaacay dalkiisa maantana warwar kama qabno inaynu cid kaste oo isku dayda inay daandaansi ciidanka qaranka iyo dalkaba soo saarto inaynu iska difaaci doono sidaynu ognahay dalka waxaa furmay albaabkii ictiraafka taas oo ku timi geesinimadii ku dhaci madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aynu maanta halkan uga mahadnaqayno qaranka oo dhan u wada mahadnaqayo ictiraafka layna ictiraafay muu ahayn hadiyad ee wuxuu ahaa haliyadii dalkan u soo naafoobay u soo dhintay u soo dhabar adeegay midhaheedii buu ahaa xinjir baa u soo qubatay ee maynaan ku helin xodxodosho waxay tahay
وارون حقيقة waxay tahay kubaynaan helin xodxodasho xinjir baa loo qubay waarun heestaasi maanta ay taagan tahay waxaan maanta laba kalmadood leeyahay walaalaheena muxuu ahaayay degmada ka tirsan gobolka Sool degmada Maasacaanood walaalayaal waxaan leenahay dhulku ma guuro ood ka dheerna kuma dhaxan tirto wax kasta oo dhexdeena yimaada nabad baynu ku dhameynaynaa Soomaaliland ciidankeeda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidna duulaan kuma aha sidii siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ahayd Soomaaliland nabad baa ay ku wada noolaanaysaa waxaan u sheegayaa qolada muxuu ahaayay ku soo dhuumatay diyaaradana waxba ka bedeli mayso imaatan aad timaado degmo Soomaaliland ka tirsan adiga oo 90% meesha aad xukumaysay aanad maanta tagi karin wax allaale waxay ka bedelaysaa ma jira taana ku biyacaba mudanayaal ilaahay mahadi waxaan anigu maanta taliye ka ahay dhulka iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta nabadda ku naaloonaya oo 1 kiiloomitir oo laga soo bilaabo Lowyacado ilaa Sool oo maanta joogo aan ku soo maray dhulka gaari tuulo kasta aan soo istaagay sidaan doonana aan ugu soo taxtaxashay laakiin maanta hadii la weydiiyo qolada koonfureed intee in leeg baad maanta gaari ku socon kartaa Soomaaliya gudaheeda su'aasha iyaga u dayeena waa inaynu ka sugaynaa insha Allah ciidanka qaranka Soomaaliland waxa ay leedahay waxaan u sheegaynaa inay leedahay ciidan hal talis leh hal madaxweyne leh hal wasiir gaashaandhig leh oo dhamaantood ay amarka ka sugaan saddexda kala sareeya laakiin iyagana waxa la weydiinayaa imisa ciidan bay leeyihiin imisa dalba kala xukuma imisa cid baa u kala talisa imisa amar bay kala qaataan iyaga su'aashaana la weydiinayaa beesha caalamkana waxa uu sheegaynaa inay Soomaaliland اعترافkeedu uu ku soo kordhinayo mandaqada geeska Afrika iyo mandaqada aynu ku noolahayba xasiloonidii hore u jirtay iyo kala dambeyntii iyo horumarkii uu ku soo kordhinaya اعترافka la اعترافay taas ayadana u sheegaynaa ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan saraakiisha maamulka dugsiyada tababarka macallimiintii tacabka galiyay ciidanka maanta midhahan ina hor jooga ee naftoodii u huray waxaan leeyahay ilaahay baa idinka abaalin doona abaalka aan qarankiina u gasheen guul baana idin rajaynayaa dhammaan ciidanka qarankana waxaan ugu bushaareeynaa maanta waxaad joogtaan dal la اعتراafsan yahay hatta shalay toona aad joogtaan dal aan la اعتراafsanayn maanta waxaad joogtaan dal la اعتراafsan yahay waxa ugu horeeyay dhismaha la gelinayo ee kor loo qaadayaana awoodda ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland weeyaan taa ku bushaareysta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh